Horyaalka Premier League England galabta ilaa caawa waxa la ciyaaray ciyaaro xiiso leh. Ciyaartii u hooseysay ee la sugayay isla markaasina saadaasha laga bixiyay waxay ahayd ciyaartii u dhaxaysay kooxaha Liverpool iyo Crystal Palace. Waxa la saadaaliyay in kooxda Liverpool si fudud ku badin karto isla markaasina ay hoggaanka kala soo noqon karto kooxda Man City oo shay la wareegtay. Hase yeeshee sidaas ma noqon oo kooxda Liverpool inkastoo ciyaar fiican soo bandhigtay oo ku badan karasay haddana uma suurtagelin inay halkaasi wax dhibca kala tagto. Waxaana ciyaartaasi ku soo dhamaatay 1-0. Kulanka haddii aan si guud u eegno ciyaartu dhan bay ka socoto inta badan dhanka Liverpool ay ka socoto 70% positionka waxa haystay kooxda Liverpool harta Crystal Palace ay 30% ahayd. Koornayaasha waxa la isku soo tuurtay Liverpool 12 koornay heshay halka kooxda Crystal Palace ay heshay 1 koorna oo kaliya. Ma aragtay laadadka goolka ku beegan waxay kala heleen 6 iyo 5. Kooxda Liverpool 6 kubadood oo khatar ah oo ay gool ku dhalin kareen bay heleen. Inkastoo kooxda Crystal Palace lafkeeda iyadoo ka faa'iideysanaysa kubadaha counter-attack ay la ciyaarayeen 2 kubadood oo kale halis ay sameeyeen laakiin kulankaasi waxa uu ku soo dhamaaday 1-0. Klopp oo hadda marka ciyaartu dhamaatay wuxuu waxba khaldanaa laakiin waxa khaldan dib ayaan ka soo sixi doonaa. 7 kulan ayaa haray in la aado isla markaasina tartanka Premier League uu sii socdo. Way adag tahay kulli Man City sida imika looga reebo. In yar ka horna waxa soo dhamaaday kulankii u dhaxeeyay kooxaha Arsenal iyo Aston Villa kaas oo ka dhacay garoonka Emirates ee kooxda Arsenal. Caawa sidaan sheegnay saadaaluhu waa wada khaldameen oo waxa la saadaanay labada kulan ee Crystal Palace Arsenal iyo Aston Villa in labada kooxood ee ku hirdamayo horyaalku ay Man City ka reebi karaan laakiin labadoodu way khasaarayeen. City baa horyaalka haysa. Arsenal ciyaarteeda hadan si gaar ah u eegmana horta qaybta hore ciyaarta waxa maamuleysay kooxda Arsenal oo ku badibashada gool 6teeda waxa la Arsenal inkastoo iyaga lafteedu ay gool khatar ku dhufteen birta oo aanu dhalanin. Kulankan oo ku soo dhamaaday 2-0 oo Arsenal looga badiyay oo waliba daqiiqadii dhamaadka ciyaarta laga dhaliyay isla markaasina halfka dambe sidaan sheegnay halfka hore waxa la Arsenal halfka dambena Aston Villa lahayd. In badan bay sigeen goolka Arsenal daqiiqado yar waxa u dhaxeeyeen 2 gool ay dhaliyeen. Arsenal waxay u muuqataa inay soo gabagabowday rajadeedii inay ku guuleysato horyaalka Premier League ee sanadkan. Saddexda kooxood ee imika ku hirdamay Liverpool iyo Arsenal iyo City waxa sugayay iyada ciyaaraha ugu adag oo Chelsea, Man United, Tottenham nimankaas oo dhamay waa hareen. Marka Arsenal horta meel qariinqayra ayay imika gashay kulankan waxa ay inay badiso laakiin caawana waa laga badiyay. Sidoo u dhamaaday sanadka cusub ee 2024 waa markii koowaad ee laga badiyo. Marka intii hore si fiican bay u soo ciyaareen laakiin caawa dib u socdano dad badan waxa leeyihiin war Arsenal sideedu ma ku noqonaysa awlaba way soconay kooxaha kale bay warbasay. Marka Arsenal iyadoo meel qariiqayra ba gashay City horyaalka waa haysa. Haddii ay eegno kulankan waxyaalaha kale ee xusida mudan ee sheegi karno waxa kamid ah positionka kubadda waxa haysay kooxda Arsenal 51 kooxda kalena 49 bay ahayd wax badan ismay dhaamin. Ciyaartuna half iyo half ay waxay isku laadeen kubadaha goolka ku beegnaa halistaha 4 bay Arsenal heshay oo kamay faa'iideen. Aston Villa 2 heshay labadeedii gool bay bedeshay. Home iyo awayna 6 dhibcood kooxda Arsenal waxay ka mid tahay kooxaha ka qaatay sanadkan. Marka Aston Villa lafteedu ma faana kaalinta afraad ee horyaalka Premier League ee sanadka ee Champions League ay soo fadhiisatay. Koornayaasha waxay kala heleen 4 Arsenal heshay 6na waxa heshay kooxda Aston Villa. waliba 6 Aston Villa waxay heshay halfkii dambe oo weerarka kooxda Arsenal xoog ugu socday. Arteta caawa inuu bedel badan sameeyo weerar soo qadimo maadaama horyaalkiisa ka sii dhamaad yahay kulankan kulamada muhiimka ka waxyaalaha kale oo khaladka caawisanay waxa kamid ah Havertz aan kubadba halfkii dambe adag inuu garoonka ku sii hayay marka horena lagu canaanadiyay inuu lacag badan soo siistay. Marka Arteta laftiisa waxa weeye inkastoo uu kooxda wax badan galiya haddana laakiin waxa weeye wali waa caawa si fiican
kulanka bedelkii uma samaynin taageerayaasha ku canaanayeen iyagoo indhaha rogaya ayaa caawa garoonka ka baxeen markaa kooxdii Man City horyaalkii waa haysaa ma sii hayn doontaa ba jawaabtu tahay sidaasay u badan tahay sida iminka la saadaalinayo laakiin kulli kulamo 7 baa jira oo la aadi doono sida aynu sheegnay marka kulamada kulli cid badisa ayuunba horyaalkuna u badan yahay haddii aynu waxyaalaha kale ciyaaraha caawa ku saabsan horyaalka Jarmalka ayaa isna caawa la kala qaaday kooxda Bayer Leverkusen ayaa qaaday ninkan Xavi Alonso dhowr iyo 40 kulan oo ciyaaray wax guud daraa lama kulmin Bundesliga intuu tababaraha ka noqday kooxdan Bayer Leverkusen uu watina tababarahan Xavi Alonso taariikh buu sameeyay oo dhinaciisa dhulka lama dhigin caawina wuxuu ku guuleystay horyaalka Jarmalka waxa uu dhaliyay ama kooxdiisu dhashay Xavi Alonso 74 gool waxaana laga dhaliyay 19 gool wax guul daraa lama kulmin kooxda Bayer Leverkusen waa markii horeysa taariikhda ay ku guuleysato horyaalka Jarmalka marka ninka sidoo kale taariikh uu sameeyo kooxda meel weyn ayuu u hogaamiyay sanadkan